بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. halkan waxaa jooga guddida qabanqaabada ee shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. laba qof baa shaqana kaga maqan 14 weeyaan oo 12 kale way joogaan. waa markii labaad ee aanu idin yeedhno. waxaanu jecel lahay intaan hadalkayga bilaabin kamaradihiinu darhooraha ay qabtaan bal kana ha qabtaan kana annagaa leh qoladii darhooraha ku qabanaysay kana ku qabto annagaa leh marka qoladii saa u sheega inta markaan kaftankaa kaga gudbo shan hore u iclaaminay ama aad u ogtihiin shirka xisbiga waxaa la qabanayaa bisha Oktoobar usbuuceeda hore waxaanu ka dhici doonaa magaalada Hargeysa. shirkaas waa shirweynaha xisbiga ee 5 sannadoodlaha ahaa. hay-adaha xisbiga maamula ayaa shirarka noocaas ah hadduu yahay shir caadi ah oo shir aan caadi ahayn aanu ahayn shir caadi u yahay. hay-adaha xisbiga maamula ee ugu horeeya guddoomiyaha ku-xigeenada xogayaha guud guddida fulinta golaha dhexe iyo guddida fulinta ayaa ka soo baxa shirarka noocaas ah had iyo jeer. shirkayagana waddadaas unbuu raaci doonaa. waxaa lagu dooran doonaa hay-adihii ama ka soo bixi doona hay-adihii maamulayay xisbiga 5 sannadood ee soo socda. ugu horeeya guddoomiyaha xisbiga iyo ku-xigeenadiisa golaha dhexe uu ka mid yahay guddida fulintuna ay shirkan uun ka soo bixi doonto go-aamadiisa. waxaa ugu muhiimsana dadku eegaa had iyo jeer la isweydiiyaa ee xasaasiyadda lihi waxa weeye waa cidda xisbiga hoggaankiisa qaban doonta. xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u samayn jiray waa xisbi furan. xubin kasta oo xisbiga ka mid ah oo u tartamaysa guddoomiyaha xisbiga ama ku-xigeenadiisa waxaanu halkan maanta ka caddaynaynaa oo ka sheegaynaa inay u furan tahay ee aanu ahayn cid u xidhan ama cid lagu cimaamadayo. waa lagu tartamayaa, waa la isugu imanayaa, waa u furan yahay ciddii hungurigaa iyo hankaasi uu ku jiro. haddaba waa inay jiraan tallaabooyin la raacayo iyo waxyaalo la raacayo oo dadkaas shuruudo loo dhigay oo ay buuxiyeen. halkan waxaanu ku caddaynaynaa shuruudaha aanu rabno cid kasta oo doonaysa inay soo tartantaa in ay shuruudahan buuxiso. marka hore shardiga koobaad xubinta u tartamaysa guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiye ku-xigeenada waa inuu 10kii sannadoodee u dambeeyey xisbiga kulmiye ka mid ahaa contributionna uu ku darsaday oo ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay oo laga dhex arkayey 10kii sannadood u dambeysay. contributionku maaha inuu lacag bixiyo qura ugama jeedno, waaba iska yarta cidda lacag bixinaysay, laakiin inuu yahay qof taladiisa, raygiisa, ololihiisa, kambeynkiisa, maskaxdiisa, joogitaankiisa, xaadiritaankiisa intuba xisbiga ay ka dhex muuqato oo lagu dhex yaqaano xisbiga kulmiye. 2 xubinta u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbigu waa in aanu ahayn xubin lagu yaqaano lagu bartay ama mar hore soo sameeyey intuu xisbiga kulmiye isagoo ka mid ah intuu ka baxay oo xisbi kala galay ama urur kala galay haddana dib ugu soo noqday. waa inuu yahay xubin rasmiya oo kulmiye lagu yaqaanay. hadduu yahay dadka guurguura ee maalinna xisbi gala maalinna ka yimaada maalinba middan u arkaa waa shuruudaha lagu reebayay buu ka mid yahay aanu ku tartamaynin. shardiga saddexaad
musharaxiinta guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada xisbiga u tartamaya waa inay labadii sannadoodii u dambeeyey waddanka deganaayeen rasmi ku ahaayeen waddanka si dadka dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa iyo noocyadooda iyo ay u fahmi karaan labadii sannadoodii ugu dambeeyey waa inay waddanka deganaayeen oo ay joogaan. 4 xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto guddoomiyaha xisbiga waa inay bixiso 129 milyan oo Somaliland shilin. xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto guddoomiye ku-xigeenka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraadna waa inay bixiso 86 milyan oo Somaliland shilin. lacagtaasi celin ma laha, cidda loo celin maayo. hadduu dhaco qofku iyo haddaanu dhicin iyo hadduu intuu lacagta bixiyo tanaasulo midna loo celin maayo, celis ma laha. waa kharashka la doonayo shirka in lagu maamulo. lacagtaas waxaa la bixinayaa ugu dambeyn bisha September 5teeda waa inay soo qaadhaa halka loogu talagalay guddida qabanqaabada ah. bisha September 5teeda ugu dambeyn waa maalinta ugu dambeysa deadline-ka. musharaxu jagooyinka u tartamaya waa inuu soo gudbiyaa codsigiisa oo qoraal ah iyo jagada uu u sharaxan yahay. waa fahamteen intaana? musharaxu waa inuu soo gudbiyaa oo keenaa warqadiisa dembi la'aanta iyo tiisa caafimaad qabka. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.